halkan waa janaalkeena xulashada wararka kulantu wacan wanaagsan saaxiibayaal u diyaargarooba mar kale muuqaal cusub wararka ku saabsan arrimaha Soomaaliya caalamka tiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn waxaa kamid ah dad ka xareysan xilka qaadisiga gudoomiye Dhabo Daarood oo ku dhawaaqay qorshe halis ku ah madaxweynaha Puntland iyo abaabul halkaasi ka soconaya wafaahin ku saabsan shil dad ay ku dhinteen oo ka dhacay duleedka Garowe tirada dhimashada sii kordhisa madaxweyne Dani oo laba arin ay isku hayaan dawladda ka hadlay kiiska Axmed Madoobe wafdi ka socda xafiiska ra'iisul Soomaaliya oo gaaridho Soomaaliya iyo ra'iisul Khayr oo maalinta bariya ku sii jeeda halkaasi dagaal xoogan oo dhaxmaraya beeraleyda iyo anyax oo ka bilowday qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo beeraleyda oo durba qeyr dhan xooga ka muujinaya anyax qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona ku saabsan warbixinada la xiriira arrimaha Soomaaliya iyo waliba siyaasadda taagan aan eegi doono u diyaargarooba saaxiibayaal kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhig gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan warbixinada iyo wararka xiisaha badan ee halkan aan soo gelino dadka xareysan xilka qaadista gudoomiye Dhabo Daarood ayaa waxay wadaan qorshe halis ku ah maamulkaasi Puntland mudaharaadyo looga soo horjeedo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ee la geeyay degmada Liirada Xingalool ayaa waxa uu ka soconaya halkaasi ayadoo shacab careysanaysa abaabuleen kuwaasoo ka soo horjeeda xilka qaadista gudoomiye Dhabo Daarood ay dhigayaan banaanbax ka soconaya Xingalool ee gobolka Highland halkaas ay kaga soo horjeedaan qaar ka mid bulshada Xingalool oo u badan dhalinyaro iyo haween ayaa ku dhawaaqay ereyo ka dhan ah Puntland waxayna codsanayeen in la furo wadooyinka Xingalool ee xilligan la xiray sidoo kale waxay codsanayeen in gudoomiye Dhabo Daarood maamulka lagu soo celiyo in gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo maalmo ka hor booqasho ku tagay Sanaag iyo waliba gobolka Highland ayaa u suurtagali weysay xasilinta iyo dejinta dadkan careysan oo ka carooday xilka qaadista Dhabo dadka mudaharaadyada sameynaya ayaa ah kuwa degan magaalada Xingalool gudaheeda iyo waliba banaankeeda dadka reer Xingalool ayaa kamid ah Xingalool waxay kamid tahay deegaanada ay maamulaan Puntland ee hoosta goboladaasi waxayna Xingalool ka soo jeeda gudoomiyaha hadda la doortay baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil inkastoo dhowrkii cisho ugu dambeysay Cabdirashiid uu ku sugnaa Xingalool iyo waliba meelo kamid ah gobolka Highland halkaas oo u tagay qorshaha dejinta dadka mudaharaadyada dhigaya iyo waliba kuwa ka soo horjeeda maamulka laakiin muusan ku guuleysan ku qancinta arrintan gobolada Sool iyo Highland ayaa waxaa la soo sheegayaa inay ka jiraan xiisad ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Dhabo Daarood kaasoo xilka laga xayuubiyay mooshin ay ka keeneen xubno badan oo xildhibaanada waxaana la sheegay in mooshinka ay riixaysay xukuumadda Puntland oo ugu dambeyn sabab u noqday in xilkiisa uu ku waayo gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee la doortay oo Xingalool u tagay xalinta xiisadan ayaa u muuqda mid markan ku guul dareysanaya arintan Puntland intaanan ka bixin wararkeeda ee faahfaahin ku saabsan shil ka dhacay halka Garowe waxaana la sheegayaa in dad badan ay ku dhinteen wararka ka imaanaya gobolka Nugaal ayaa sheegaya in 4 ruux ay dhinteen shil gelinkii dambe ee xalay ah ka dhacay deegaanka Liirada Suujine oo qiyaasii 60 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan caasimadda Puntland ee Garowe dadka shilkaasi ku dhintay oo kala ah hal nin iyo waliba 3 dumar ah ayaa meydadkooda waxaa la geeyay isbitaalka guud ee caasimadda Garowe ee Puntland sida warbaahinta gudaha u xaqiijeen mas'uuliyiinta isbitaalka ee xarunta gobolka Nugaal dadka ku sugan Garowe ayaa sheegaya in dadka ku dhintay shilka gaariga ay dhamaantoodba la geeyay meydadkooda isbitaalka weyn ee magaalada si eheladooda halka ay ugu soo booqdaan sidoo kale wararka la helay waxa ay sheegayaan in taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Nugaal gaashaale Cismaan Maxamed Buure iyo waliba xubno kale halka ay gaareen dhowr jeer hore ayaa shilalka gaariga ay sabab dhimashada dhaawac waxay ka dhacaan duleedka Garowe waxaana arinta u wacan ayaa la leeyahay burburka wadooyinka Garowe oo ah kuba aad u burbursan burbur xoogana soo gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani waxa uu ka hadlay laba arin oo mida isku hayaan dawladda federaalka iyo arinta Axmed Madoobe oo sheegay in guud ahaan la xaliyay khilaafka Axmed Madoobe iyo dawladda federaalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo xalay magaalada Garowe kulan su'aalo lagu weydiinay lagu qabtay ayaa si toos ah kaga baxay TV-ga maamulkaasi waxa uu ka jawaabayay su'aalaha su'aal ay dadweynaha weydiiyeen madaxweyne Dani ayaa u badnaaday arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo tan dawladda dhexe iyo midda Puntland sidoo kale wax lagu weydiiyay waxa uu salka ku hayay khilaafka Puntland iyo dawladda kala dhaxeeya kaas oo
xoogeystay dhamaadkii sanadkan xafiiska madaxweyne Dani intuu joogay. Saciid Cabdilaahi Dani oo ka jawaabayay su'aalihii dadku ay weydiiyeen ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay meel iska dhigtay wax wada xaajoodka arrimaha la xiriira Puntland iyo weli wax wada qabsiga. wuxuuna sheegay in ayaguna arrinta ay ka biyadiideen lala jabiyo dastuurka qodobo ka mid ah. waxa uu sheegay nooca doorasho ee dalka la doonayay inay tahay mid aan weli cadeen. wuxuu sheegay madaxtooyada Villa Soomaaliya ay wadaan qorshe aan suurtagal ahayn oo ku saabsan doorashada 2020. Dani mar uu si gaar ah u dul istaagay waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday doorashooyinka. waxa uu yiri doorashada federaalka ee diyaargarowgeeda ugu dambeeya ka socda waxay tahay mid anagna qosayso maahan wax talaahi doorna midna kuma leena ayuu yiri. mid mar uu ka hadlayay arrinta la xiriirta doorashada ee maamulkiisana waxa uu sheegay inay qaban doonaan. ma jirto nidaam gaar ah oo lagu heshiiyay oo ku saabsan doorashada Soomaaliya sida in madaxda maamul goboleedyada dowladda. waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay rabaan in mar kale nagu celiyaan nidaamkii 4.5. annaga waxaan leenahay maamul dhisan ma dooneyno waxaan qayb ka ahayn inaan ku milano ayuu yiri Saciid Cabdilaahi Dani. madaxweyne Dani ayaa la weydiiyay halka uu ku dambeeyay ballanqaadkiisii ahaa inuu heshiisiin doono Axmed Madoobe iyo waliba dowladda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. wuxuuna ku jawaabay waan wadi qorshahan waxaan doonayay inaan xamar u aado balse waa ka baaqday kadib markii dowladda ayada iskeeda ay ula heshiisay maamulka Jubbaland kadib markii wasiirka maaliyadda uu tagay magaalada Kismaayo halka uu ka qayb galay shir. waxa ay muuqataa in labada dhinac ay iskooda u heshiiyeen ayuu yiri madaxweynaha Puntland. mar wax laga weydiiyay arrimaha waxbarashada Puntland ayuu yiri arinta waxbarashada dadka cabsida ka qaba ma ihi shahaadada ayaa ardayda loo diiday anaga aqoon gooni ah ayaan u leenahay haddii qof xamar jooga uu diido ama qof xamar jooga hadduu qaban waayo qodob ka mid ah dastuurka oo la xisaabtami waayo Puntland way tashanaysaa waxayna leedahay xaalado kala duwan go'aan ayaana gaari doonaa ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo wax laga weydiiyay ardayda Puntland oo sanad kale loo diiday helista imtixaanaadka shahaadiga ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo kulanka golaha wasiirada Puntland shalay lagu eedeeyay dowladda federaalka inay ardayda Puntland u diiday shahaadooyinka ayna hor istaagtay dhammaanba deeqo waxbarasho ee ardayda Puntland ay ka heleen dalalka caalamka ay ugu horeyso Masar iyo waliba wadamo kale. qodobada kale ee wararkeena saaxiibayaal waxaa qayb ka dhuusamareeb waxaa ka soconaya abaabul iyo waliba xubnaha horkacaya xafiiska ra'iisul halkaasi gaaray maalinta Sabtidana bari ana waxa la filayay magaalada uu gaaro ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. magaalada dhuusamareeb xarunta gobolka Galgaduud waxaa gaaray wafdi horkacaya xafiiska ra'iisul Soomaaliya kuwaas oo la filayay in halka maanta ay shalay ay gaareen maalinta Sabtidana waxaa la filayay in magaalada dhuusamareeb uu gaaro ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. wafdigan gaaray dhuusamareeb ayaa isugu jira xubno ka tirsan shaqaalaha xafiiska ra'iisul ilaalada gaarka ah ee ra'iisul Soomaaliya in halkaas laga sii hormariyay ammaanka garoonka diyaaradaha guud ahaanba iyo guud ahaanba ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana sugidda amniga iska kaashanaya ciidanka dowladda federaalka kuwa AMISOM oo ku sugan dhuusamareeb iyo waliba ciidamada kale ee gaarka u tababaran ee ilaalada xafiiska ra'iisul waxaana weli si rasmi ah loo shaacin booqashada ra'iisul ee inuu ku tagay dhuusamareeb maalinta Sabtida ah iyo in maalmo kale uu tagayo. waxaana soo baxaya inuu jiro khilaaf ba'an oo u dhaxeeya aqbalka 20 xildhibaan la sii ahlu sunna iyo waliba guddiga farsamada maamulka. jadwalka hore loo shaaciyay guddiga farsamada doorashada ayaa u muuqda mid dib u dhac ku yimaaday jadwalkii labaad ee dhawaan ay soo saareen oo u muuqda mid aan hirgeli karin marka loo eego waqtiga iyo waliba sida jadwalka ay u soo saareen. waxaa jira cabashooyin badan ay muujinayaan qaar ka mid beelaha Galmudug taasoo ku aadan qaabka ahlu sunna ay u soo xushay 20 xubnood ee la siiyay maamulka ay ku yeelanayaan. dagaalkii ugu bacnaa ayaa markan ka dhex taagan beeraleyda iyo waliba anyax ku dagay beeraha ugu waaweyn ee dalka. warbixintana ugu dambaysa warkeena maanta oo Jimcaha ayaan ku eegi doonaa.
ayax badan ayaa soo galay guud ahaanba dalka waxaana ayaxan uu ku habsaday meelo badan oo kamid ah gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. ayaxan waxaa la sheegay in asalkiisa uu ka yimid dhanka Ethiopia. tiro sawiro ah oo muujinaya ayax tiro badan oo raxan ah oo socda kuwaas oo ku daldegay beeraha degmooyinka Tayaglow gobolka Boqol ka tirsan Galgaduud meelo kamid ah iyo waliba Hiiraan meelo kamid ah. ka hor inta aanu ayaxan ku degin beerahaas ayaa waxa ay beeralaydu ay bilaabeen in ay la dagaalamaan si aanay ayaxa marna u saameyn tacabkooda dhul beereedka. beeralayda ayaa ciidii ulaba kula dagaalamay ayaxa balse taa kama ayna hor istaagin ayaxan duulaanka ku ah beeraha Soomaaliya wuxuuna ku degay dhul beereed baaxadiisu aad u weyn tahay. dhinaca kale bartamaha Soomaaliya ayaa ayaxan si ba'an faraha ugu haya asagoo sidoo kale beeraha waa miraha beeraha ee gobolada Mudug Galgaduud iyo Hiiraanba uu ku habsaday dhibaato badan oo ku haya sida ay ka qeyla dhaaminayaan. waxaana la soo sheegay in ayaxa uu soo gudbay dhanka ay gobolka Shabeellaha Dhexe oo meelo kamid ah beerihiisa ay soo gaareen. maalmaha soo socda ayaxan duulaankiisa ayaa la filayaa inuu soo gaaro gobolka Shabeellaha Hoose meelo kamid ah oo gobolka ugu barwaaqada badan beerihiisa. Bay ayaa hadda la soo sheegay in ayaxa u gudbay. walwalka ugu xoogan ee iminka ay qabaan ganacsatada Soomaaliyeed ayaa ah in ayaxan uu baabi'iyo beeraha taas oo keeni karta halis weyn oo dhaqaalaha dalkana dib u dhacda. dadaal kasta oo ku saabsan beeralayda ay ayaxan ula dagaalamayeen ayaa maalmihii dambe ay bilaabeen inkastoo aan lagu guuleysan in ayaxan faraha badan laga hortago. wasiirka beeraha Soomaaliya ayaa waxaa lagu dhaliilayaa in beeralayda wax la tashaawusa ka siin habka looga hortagi karo ayaxan dhibaatada ku haya beeraha. sawiro la soo qaaday ayaa muujinaya in koonfurta bartamaha Soomaaliya ay dhibaato ba'an ku haya ayaxa. xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow waa mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa Arbacadii magaalada Muqdisho ka sheegay in duulaanka ayaxa uu yahay mid aad u weyn una gaaray deegaanada koonfur galbeed halisna loogu jiro inuu soo gaaro magaalada Muqdisho. waxaa soo baxay cabsida ah in ayaxan suurtagal ay tahay in Afgooye iyo meelo kamid ah caasimadda Soomaaliya Muqdisho soo gaaro. haddii ay soo gaaraan taa waxay tahay dhibaato kale xoogan. warbixintan ayaa ugu dambeysay saaxiibayaal wararkii maanta aad ka daawanaysan channelkeena xulashada wararkeena waa naga inta warkan kan xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.